السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. welcome guys to صباح official. kusoo dhawaada meel kastoo dunida dafeeda ka joogtaan waxaan ku salaamayaa salaanta muslimka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. xilli kasta iyo xilliga joogto ha ku wacnaado, xilligoo dhan baa idiin wacnaado asxaabta صباح official ku xiran. baryahan iyo waayahan dambe waa idinka maqnaa mashquul iyo cunuga dhakhtarku kula jiray bay iga xanuunsanaa. wiilkayga weyn ay fastborn baradkayga iga xanuunsanaa. markaa maasha allah tabaaraka raxmaan. asxaabta intii soo duceyso waa mahadsantihiin. waxaan ku dhahaa asxaab badan ay soo weydiisay sabaxay maxaa kugu dhacay daad soo waxaan u aamusay oon dhowr usbuuc waxba usoo dhigin, laakiin hadda iyo intii ka dambeysaba wixii ay iga barateen talooyinkii sheekooyinkii riwaayadihii wax walbaad iga barateen hadda kadib waa laydiin soo dhigayaa insha allah. ilaahay hadduu nafta nagu simo, naftani waana nalama siinin, waa in yaroo muddo baan haysanaa, waqti kastaa lagaa qaadi karaa. marka inta ilaahay hadduu nafta nagu simo oo noolaano oo caafimaad leenahay wax badan aa idiin soo wadaa coming soon ayaan leeyahay. channelku waa channelkiini, gabadhu waa gabadhiini, saa awalba u barateen oo ila socoteen, haddana ha iga caajisina. hadda 1k aan gaaray insha allah. idinkaan asxaab ay gaarsiiyey inta ka badanna idinkaan idinka rajeynayaa. marka waxaan leeyahay welcome guys. marka fiidiyoyaashan dhinacan ay idinka tusaayo waxaa waaye markii wiilka uu dhakhtarka galay, siduu dhakhtariinta u sameynayeen, siduu caafimaaday ilaa aan dhakhtarkii kasoo baxnay, the whole process dhan oo yani maalintii nala dhigay ilaa maalinta kasoo baxayna wixii oo dhan aa fiidiyoga dhinacan aa idinka tusaayaa. marka asxaabe ha iga xumaanina, ha u malaynina gabadhiina idinka caajistay. ma caajisin, mana laga yaabo inaa caajiso. marka asxaabey waxaa kaloo haddana maanta aan maqlay gabar soomaaliyeed oo la kufsaday oo 3 caruur hooyo 3 caruur ka tagtay, ninbaa faraxumeeyaa la dhahay. marka maasha allah gabadha waxaa la dhahayay magaceeda waxaa la dhahaa sorry guys, waxaa la dhahaa Ogbaad Cali. dhammaan maskiina waa geeri xanuun badan iyo dhacda xanuun badan inay nimankii saa cadowtinimo u yeeshaan. waayahan dambe gabdhii waa la kufsanayaa. waabad kufsatee maxaa haddana dilka ugu daraysaa? maxaad u dilaysaa? maxaad nafteeda u dhaafinaysaa? maxaa dhiig bini aadan aad u gelaysaa? wax kasta ilaahay wuu kaa cafin karaa, laakiin dhiig bini aadan kaama cafinaayo. meeshii unbay ku taalaa. tan aad gabadhan maanta ku samaysaa wiil soomaaliya adigoo gabadh saa ku sameeyey, gabadhi way kula dhalatay, way ku dhashay, waa hooyada, waa habaryarta, waa eedada, waa walaasha, waa inaadeerta, waa xaaskaagii. maxaasaa gabdhaha ugu gelaysaan? maxaa u qiyaamaysaan? maxaa haddana u dilaysaan? bal 3 caruura hadda rajo ka dhigtay. wiilka gabadhaas waxaa lagu kufsaday waa Burco, magaalada Burco, wadanka Somaliland, khusuusan magaalada Burco. dhacdadaas xun ee foosha xun ka dhacday, laakiin waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaahu naxariisto, faraskeeda aakhirada ilaahay ha uga dhigo. wixii falkaa uu ka dambeeyey ee falkaa u geystay haye xaasinimada noocaasa maxaa ma fiicno wallahi bilaamaay. waa xanuun badan. hooyo 3 caruur ee aada rajoobay oy jaamacad bay dhiganaysay. wa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. wiilashii Soomaaliya waa xumaateen baryahan dambe, cadowtinimo ay idinka buuxsantay. I don't know why. gabdhahan waa walaaladin, waa xaas ay idiin noqon lahayd. haddayba heshiiseen maxaa u kufsatay? maxaad saa ugu gashay? ilaaha uu naxariisto, wax kaloo dhahno ma garanayno. laakiin wiilasha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa gabadha marna way kula dhalatay, mar waad dhashay, mar waa ku dhaxday, mar way ku dhashay. maxaad saa ugu galaysa? ma jeclaan lahayd adiga in walaasha saa lagu sameeyo oo la kufsado la dilo? ma jeclaan lahayd? waa maya. waxaanad jeclayn gabadheedna ha ku samaynin. marka walaalo wiilashana Soomaaliya meel kastoo adduunka daafiisa ka joogaan waxaan idin leeyahay cadowtinimada iska daaya, dilka kufsiga iska daaya. ma fiicna, ilaahay hortiina ma fiicna. if iyo aakhiro mid ay ku fiicantay malaha. magac xumaa ku raacayso, diintii waa dembi baad gasho oo ilaahay waa uu ku caroonayaa oo ciqaab weyn baa ku sugaysa. marka ilaahay u naxariisto miskiintaas. waa saas talooyinkaas aan idin hayaa wiilasha Soomaaliyeed inay gabdhaha ay xumaynin ee faraxumayska ka dhaafaan. kufsi dil ay dana iskugu daraan waa laga xun yahay.
ما fiicna marka hadda iyo dan waxaan leeyahay hadda kadib Sabaax official wixii ay iga barateen maalin walba video cusub ay idin soo dhiga insha Allah mana caajisay mar dambe saas iyo hadda shuruudaha channelka waxa way hadda ku cusubteen subscribe hadda fiinado subscribe like sulka saade wax qarasho kugu hayo ma laho waa miskiintiina yareed waa walaashiin waa gabadhiini like comment ku wuxuu noo yahay dhiirigelin hadda wax qaladna bini aadan wax qalad waa sameey karnaa hoos noogu soo qor subscribe kana ha iloobin hadda nagu cusubtay channelka subscribe noo saar hadda awal noola joogtina ku soo dhawow mar labaad mar koowaad mar saddexaad ay idin leeyahay sidaas nabadgelyo xilligu ha idin wacnaado soo noqod wanaagsan ma sha Allah tabaaraka raxmaan ilaahay baa idin baryayaa insha Allah khayr iyo guul iyo gobanimo